بسم الله الرحمن الرحيم مدحويني وكسو دويننا الحمد لله رب العالمين dalkii hadaad noogu soo noqotay nabadgelyo dalkii oo nabad qaba waxyaabo iska dhacay oo iska geeridu waa xaq weeye waxa aan ognahay wasiir dawlihii madaxtooyada waa shalay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun aan soo aasnay xanuunsanayo muddo xanuunsanayo hadda bes isaga dhintay dalka intiisa kale waa nabad aad baanu maxay tahay ugu mahad celinaa ilaahay adigoo nabad qaba iyo dalka nabad qaba inuu noo soo ka celiyay wax mushkilad oo kale ma jiraan waa ku soo dhaweynaa ku soo dhawo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenka koowaad iyo labaad xildhibaanada golaha wasiirada maayarka magaalada Garowe akhyaarta kale ee halka timid dhamaantiin waan iga mahad celinayaa runtii guriga noqoshadan iyo soo dhaweyntan diiran aad ii samayseen waxaan marka ugu horeysa u tacsiyeenaynaa dhammaan isu tacsiyeenaynaa annaga si gaar ah heladii wasiir dawlihii madaxtooyada ilaahay naxariis janno ha siiyo ee ku geeriyooday shalay magaalada Garowe runtii waa tacsi tiiraanya lahayd oo fajaa ah waxaan si ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu baryaynaa inuu miisaanka xasanaad iyo jannada firdawsa geeyo annagana sabar iyo iimaan uu naga siiyo bacdigiisna uu nafidnayn waa runtii geeridaas oo dawladduna si wanaagsan ay u garab istaagtay aaskiisii eheladiisii iyo carruurtiisii meel kasta ay joogaanna iyo waan uga wada tacsiyeynaynaa mar labaad insha allahu tacaala dabcan intii aan maqnaa muddadii koobnayd waxaa gadaashay ka dhacay deegaanada Puntland shaqaaqooyin yaryar oo marmar iska dhaca oo gobolka Sool dad ehelo walaalo ah oo xurgufi dhex martay waxaan rajaynayaa iyadana sidii madaxweynuhuna baaqa uga soo saaray dadka waxgaradka iyo ay gacanta ugu hayaan Puntland waxaan rajaynayaa iyadana ilaahay idinkiisa intii dhacday aysan wax dambe ku darsoomin ay noqoto wax la soo afqabto duruufahaas dhacdhacaya waxaan rabaa haddii ilaahay raxmadda iyo barwaaqada keeno dadka khaasatan miyiga jooga waxaan ugu baaqayaa inay ilaahay ku xamdi naqaan xilliyada barwaaqada waxa soo noqnoqda dagaalada iyo aanooyinka marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay wacyigoodu kor u kaco isbedel arrinta ku saabsan u yimaado tan labaad waxaan jeclahay inaan dadka reer Puntland oo muddadii u dambeysay iyo Soomaaliyaba dareemayay in xanuunka COVID-19 uu si yaraanayo cabsi baa jirta ee la leeyahay inuu soo rogaal celiyaa dhici karta marka inuusan cidla naga helin maadaama hadda lala qabsado la bartay lana noolaan karo iyadoo oonan shoog badan la qaadin laakiin intii taxadarka ahayd inaan la ilaawin oo la isdhigan waan rajaynaynaa ilaa si dhaba loo iclaamiyo inuu bahalkaasi tegey in dhaqankii laga bartay oo ahaa in salaanta la yareeyo la kala fogaado neefta la ilaaliyo intii la kari karo mar walba in aad loo sameeyo oo aysan maaragtay uusan nagu soo dhuuman mar labaad arrintaas waxaan rajaynayaa iyadana wasaaradihii iyo hay-adihii hawshaas waday inay foojignaantii hore ay wadaan oo ilaa adduunku uu ka dhagleer gareynayo bahalkaasi u dhawaad haddana maadaama diyaaradihii furmeen isku socodkii uu samaysmay waxaa dhici karta si sahlan haddana inuu meel uga soo distuso iyadana insha Allah waxaan rajaynayaa in taxadarkeeda laga muujiyo dabcan waxaan ka imid Djibouti oo muddo dhowr casho aniga iyo wafdi wasiirra aan joognay iyo akhyaar kale waxaan jeclahay maanta inaan halka uga faa'iideysto fursadaas inaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle golihiisa xukuumadda iyo dhammaan shacabka reer Djibouti aan uga mahad celiyo sidii diiranayd ehelnimada iyo walaalnimada lahayd noo soo dhaweeyeen muddadii aan joognana shaqooyinkii aan ka lahayn Djibouti ay si habsami leh ay noogu soo wada dhamaadeen laga bilaabo kulamadii madaxweynaha kuwii wasiirada iyo kuwii markaas meelihii ku habboonaa in aan
muddada aan joogno aan soo booqonnana si saabsamana soo booqonno dabcan Djibouti waa dad walaalaheena taariikh iyo dhalasho iyo ehelnimo isku kaay xiraysa wax badan oo soo jireen ay ka dhaxeeyeen Djibouti iyo Soomaaliya waliba Puntland oo xuduud badeed la leh xiriir ganacsina la leh waxaan kulankeenu saldhigiisu ahaa in xaaladda dalkana iska wareysano waxa labada dal guud ahaan Soomaaliya iyo Djibouti isweydaarsan karaan gaar ahaan Puntland oo ay isweydaarsan karaan dhinaca horumarka ah iyo xiriirka ganacsina si xoojino khibradaha iyo horumarada ay gaareen aan soo aragno runtii kulan aad wuxuu ahaa wanaagsan oo aan rajeynayno mirihiisa in la arki doono waqtiyada soo socda hadii Ilaahay dabcan sida lala socdo cid walba ay dareemayso dalka Soomaaliya wuxuu galay marxalad kala guur waxaa socda maraaxishii madaxweynaadkii dawladda federaalka uu gabagaba yahay oo aan rajeynayno in doorashooyin ay dhacaan runtiina la wada sugayo dabcan sidaad ogtihiin doorashooyinkaas waxaan rajeynaynaa in sida ugu habboon ay ku dhacaan xaaladaha ka soo cusboonaaday siyaasadda Soomaaliya isbedelada ku dhacay shirkii Dhuusamareeb 2 ka dambeeyay dalku galay dabcan xukuumaddii hawsha waday fulintina looga fadhiyo ayadii meesha ka baxday runtii hadday taas baxday waxaan sugayn anagu in xukuumad kale iyo ra'iisul wasaare kale oo bedelo hawsha sii wada inay meesha soo baxdo waxaa muuqanaysa inaan wali dhinacaas la aadin dhinacyo kalena la aadin runtii arintaas Puntland wali waa ay tashbay ka fiirsanaysaa oo inay ka tashanaysaa waxa kale oo muhiim ah khudbadii madaxweynaha shalay oo akhriyay oo ku bayaaniyay hadallo badan iyadana waxay u baahan tahay in si taxaddar loo eego dabcan annagu waxaan aaminsanayn in marxaladii hay'adaha sharciga ah ay gabaabsi yihiin wadadii saxda ahayd oo sharciga ahaydna la gaari waayay qof iyo cod Puntland ma diidana qof Soomaaliyeed ma diidi karo maxay la dastuurka ku qoranta laakiin waxa qof walba qiraayay muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qof iyo cod la qaaro inay adag tahay taana waxa cadeeyay gudoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin haddii wadada sharcigu ay xiranto waxa dabiici ah oo ilaa ay soo jireen ilaa ay 2000 in wada siyaasi la aado xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo Puntland 22 sano ay jirtay 98 jaartarkii ugu horeeyay waxa lagu dhigay in qof iyo cod uu noqdo baarlamaanka soo socday gali doona mar walba oo la gaaro madaxweynaadku inuu gabaabsi yahay la arko inaan diyaar garow lahayn waxa la aadaa xal siyaasi ah dalkana hore u socdaa dhibaatana ma dhacdo ilaa hadda laga soo gaalay oo salay halka lagu daafuray oo shahaadooyinka la siiyay 10 urur ay ka soo gudubtay oo aan rajeynayno in madaxweynaadka soo socda dalka uu galo doorasho qof iyo cod ah isagoo waqti ku filan haysta wixii loo baahnaa oo sharci ah ama procedure ahaan oo dhan qaybna hadda uu haysto qaybta kalena muddo lagu qaban karay harsanta sideedaba xalka sharciga ah wuxuu markuu uu adkaado ayaa xal siyaasi yimaada shirka ka qabsoomaya Dhuusamareeb sida khudbada madaxweynaha ka muuqatay waxa muuqanaysa taladii dalka inay baarlamaanka u taalo baarlamaanka laga sugaayo isaga oo go'aanka gaari doono Puntland markii xal siyaasi dhaba u jiro diyaar bay u tahay inay xalka siyaasiga qaybteeda ka qaato hadduu xal sharci jirana sharciga ayuu hoggaansan doontaa diilaha haddii ay aragto wax sharciga khilaafsan ama ay aragto in sharciga la baal marayana qoraahdeeda ku habboon ayay oranaysaa waqtiga ku habboon aad baa u mahadsantihiin intaasna waxaan rabaa inaan ka iraado marxaladda siyaasiga hadda la marayo maalmaha soo socdana insha Allah wixii soo kordho waa iska warqabi doona aad baa u mahadsantihiin assalamu calaykum